tijaaradana waxay ka mid tahay acmaasha xornimadu la socoto oo inta badan qofku markuu tijaaro ka shaqeeyo waa amiiru nafsihi inta badan qof cidu shaqeeya uma badna nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja warinayaan waxaa ku tilmaamayaa التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة حديث كان إمام الألباني واقع هو ضعيفين شري لكن كتبتي سيد دنبه سيد الصحيح هذا ترغيب كيو كنت الصحيحين حديث كان وحد الماما يا إنه النبي قول عليه الصلاة والسلام تاجرك وفك بايع مشتركة أمينك أو خيامين صادقة عهودية باللمادية كونتراجيد وقالك الرون شيغا مسلم كأبو النبي قولي آخره وحو معودة يهي النبيين والصديقين والشهداء وها آخره للصو حاضرين اياه دي جروب كمسلم كهقامية والنبي دي يا الصديقين تي يا الشهداء دي بمالة قيامة للصو حاضر يا أبو حديث كاسة المامية marka guud ahaan sida uu eegno tijaaradu shariicada islaamiga waa wax ku xalaala oo fiican oo qofka muslimkii uu xorriyadiisa ku samaysan karo ku haysan karo oo ilaahayna loogu dhawaado haddii la waafajiyo sharciga la soo dejiyay su'aasha marka aniga la soo diray waxay tahay furaska iyo taxadiyaadku maxay yihiin chanceska waqtiga kan muslimka mucaasirka ee taajirka ay haysto iyo taxadiyaadka challengeska hortaagan ee ka hor iman kara haddaynu wax furaska ka mida ku horreyno furaska waxa ka mid ah waxay dhahdaan tijaarada ama baa'ic mushtarku waa information waa macluumaad uu qofku hayo qofku ka macluumaad daqiiqsan yahay ama ka macluumaad fiican yahay tijaaradiisu way ka fiicnaanaysaa waxay leeyihiin information waa macluuma waa information waa inaad garanayso haddaad sokor hayso sokorta meesha looga baahan yahay meesha ay ku jaban tahay waxa lagu soo qaadaya halka la marinayo waa macluumaadka haddaad hesho waxay leeyihiin waxbaad samayn karaysaa marka tijaaradu waqtigan ama casrigan aynu joogo casrigii hore macluumo saad ku heshaa way adkayd dee qof safray oo wax soo indhaindheeyey oo soo wareegay oo meelo badan soo arkay ayuunbaa warbixin soo helayay ama casriga kan dee yusri lmacluumaat bay yidhaahdaan waxaabay yidhahdaan waa information society waa bulshadii macluumaadka intaynan casrigaba eegin soomaalida maxaa had iyo goor tijaaradooda dhulkan ay ugu fiican tahay ama loo leeyahay soomaalidu waa tijaar fiican oo kan waa open society waxbaana kala qarsanin warkaynu isku akhrinaa halkaa shidaal baa looga baahan yahay timir baa laga rabaa marka wixii markaynu isku akhrino dee waa wadaynaa marka waxaynu dadka kale kaga gedisanaa wuxuu yahay open society baynu ahayn dad macluumaadka isa siiya waan isku masuugina aad isugu bixiya macluumaadka jira taasaa waxay fudaydisay in tujaar badan oo Soomaaliyeed ama dad badan oo wax gadaya wax iibinaya inay soo bixi karaan